السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan halkan rabaa inaan tacsi tiiraan la uga diro ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. waxaan leeyahay kullu nafsun daa'iqatul maut, naf walba waxay dhadhaminaysaa dhimasho. waxaan ka nimi Alla agtiisa, waxaana u laaban doonaa Alla agtiisa. mid walba oo inaga mid ah oo neebsanaya oo muslim ah ama bini aadana uu dhimanayaa. dunidan ayaa waxaan u imaanay waxay ahayd ama uu Alla noogu abuuray in ay noqoto inaan Allah subhanahu wa ta'ala cibaadadiisa u gaar yeelno, isagana caabudno. waxa kaloo jira waxyaabo rabbaaniya oo Ilaahay bini aadamku uu ku amal tuso ama mucjisaadka Ilaahay ay kamid tahay. masiibooyinkan dhacaya ee dalka ka dhacaya ama dunida ka dhacayana waa kuwa Ilaahay subhanahu wa ta'ala maqaadirteedu u wato. waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiisanaynaa inuu waafajiyo khayrka wadada toosan ee siraadal mustaqiimkana Ilaahay nagu rido. waxaan rajaynayaa insha Allah in dhammaan walaalaha muslimiinta ah meel walba ay dunida joogaan ay u duceeyaan dadkii ku dhintay qarxi ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. mar kale iyo mar saddexaad waxaan leeyahay walaalaha muslimiinta ah eheladii iyo qaraabadii dadkii ku geeriyooday iyo kuwii dhaawacaba ka soo gaaray Ilaahay jannadii firdawsaha ka siiyo. meel walba aan joognana aad ayaan uga xunnahay haddaan nahay Soomaali wixii shalay dhacay. insha Allah waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu tawfiiqdana waafajiyo. madaxda dawladda federaalka Soomaaliyana waxaan farayaa maadaama ay mas'uul ka yihiin ummadda Soomaaliyeed in ay ummadda Soomaaliyeed wixii mas'uuliyadooda ay u qaadeen ay ilaashadaan insha Allah ayna eegtaan. waxaan ahay walaalkiin Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Shaasha. waxaan idin leeyahay kullu nafsin daa'iqatul maut, Ilaahay ha nagu hago wadada toosan.